siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba oo kamid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan doorashada waxaana uu xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ku eedeeyay inaanay u naxariisanayn dadka ay abaaruhu hayaan waxaana hadaladiisii kamid ahaa commissionka hadilmay wuxuu ahaa warkii uu bixiyay wayn wada ogsoonahay runtiina arinta hadilmay abaaruhu aad iyo aad bay u xun yihiin dad fara badan oo kulkii hore dhinaca bariga hadilmay wuxuu ahaa ku hadilmay wuxuu ahaa caydoobay ayaa jira xaggan galbeedkana iminka hadilmay waxa la soo sheegayaa xoolo fara badan qabowgan badan jira inay hadilmay ku leecanayaan oo dadkii iminka waa xagga uu hadilmay muxuu ahaa u yaacay iminkana hadilmay xoolihii bay la soo yaacayaan kulkaas labada xisbi ucid iyo wadani runtii dadkooda ay u turayaan ucid hadilmay kay noqoto dhinaca wadani hadilmay wixii tale ee ka yimaada hadilmay muxuu ahaa commissionka hadilmay muxuu ahaa wuxuu siinayaa miisaan culus buu siinayaa laakiin arrimuhu siday maanta yihiin laga wanaagsan bay ila tahay in hadilmay muxuu ahaa la yiraahdo bisha saddexaad baa la qabanayaa doorashooyinkii la qabanayaa waxay ila tahay in loo wareego la yiraahdo goorma la qabanayaa taasi suuragal ma aha oo taa laga wada hadlo laakiin saacida maanta ku dacwiyaysa in hadilmay doorashadii waqtiga la qabtay oo wadanka hadilmay dhibaatada ka jirta inuu ogsoonahay waa cid aan dawnahayn aan u turahayn dadweynaha maanta Soomaaliland kolkaas anigu aad iyo aad baan labada xisbi ee isku raacay arintaas aan ugu taageerayaa dadka hadilmay reer Soomaaliland aan hadilmay kula talinaya in arintaas la taageero si xoog loo taageero lagana waaniyo hadilmay muxuu ahaa xisbiga maanta hadilmay muxuu ahaa kulmiye ee moodaya inuu dadka tabaalaysan aawadood wax ku helayo inaan waxba ku helayn